السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشة قيمها يقايا لو دلهانتين بميل كستوات شوكتان halkani waa xarunta guud ee telefishinka caalamiga ee SAB TV kuley magaalada Hargeysa waxaana daawadayaal la soo gaadhay intaan idin soo gudbin jirnay wixii dalka dibadda naga soo gaadhay warkana waxa uu diyaar u dila socodsiin doona hadii Allah uu dalin anigu Cabdiraxmaan Abdullaahi Maxamed Fantastiga qodobada daawadayaal wararkan idin hayna ugu door karoona waxa kamid ah xukuumadda Soomaaliland oo sheegtay in dawladda Sacuudiga ay furayso dariiq cusub oo lagu dhoofiyo xoolaha ka dhoofa deegaanada Soomaaliland madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa uu maanta magacaabay xilalkii ugu horeeyay xukuumaddiisa tan iyo markii la doortay 8 bishan aynu ku jirno madaxweynaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Koonfur Galbeed ayaa waxa uu xilkii ka qaaday wasiirkii diinta iyo waqaafta ee maamulkaasi magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil maanta waxa soo caga dhigatay diyaarad siday deeq caawimo dawladda Kuwait ugu tala gashay in la gaarsiiyo dadka ay abaaruhu ku dhufteen ee ku dhaqan deegaanada Soomaaliland daawadayaal kuwaasi waxay qaar ka mid ah qodobada wararkeena ugu door karoon balse ku soo dhawaada wararkaasi warar kale faahfaahsan